السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد كحولن channelkan soo dhawaada asxaabay maxaan ku uri maanta halkan waxaan ku sameynaa casariyahan keegan shukulaatada ah maasha Allah tabarakallah waa keega aad macaan ku soo dhawaada sidaan u sameeyay waxaan ku uri waatan alaabtii halkan waxaa yaala 3 xabo oo kuna 100 gram oo subag ah iyo 1 litir kafee ah iyo 2 litir oo sonkor ah iyo 2 litir iyo bar daqiiq ah iyo 2 malqacdood oo ah shukulaatada powder-ka ah ama qalalan marka waxaan ku daray 2 malqacad kafeega lagu walaaqdo labadeed oo faniil ama carfiso ah iyo midiya badh ah faxiso marka intaasaan isku walaaqayaa la socod wanaagsan sidaan isugu dardarayo keega waxaan ku dhimacaan ma sha Allah horta waan jeclahay caruurta dadku dhanba kulli ma fiicnaan mar walba macaanka dadka weynaan laakiin marmar baa waxaan ku lagu turtaa casariye yar lagama maarmayo hadana balaadka macaanku iska jecel yihiin marka hadda waxaan ka riday ukuntii 3 ukunta baan ku jibinayaa ama beedka ahaa waxaan ku daray sonkortii intaasaan si fiican isugu soo qasayaa marka walaala qaaliga channelka ku xidhan waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan aad noo dhiirigelisaan haddii aad channelka ku cusubtiin waxaan ku leeyahay soo dhawaada subscribe-ka iyo like-ta iyo comment-ka intuunaba xaggiina dhiirigelinaya noo tahay wax nood ka faa'iidi doontaan insha Allah waxyaalaha iska fudud aan waqti badan ka qaadanayn hadda waxaan ku daray subagii 100 gram ee subaga iyo kafeega waan ku daray intaas si fiican isugu walaaqayaa hadda waxaan ku shubayaa daqiiqda iyo inta si fiican isugu walaaqayaa hadda waxaan ku daray daqiiqdii ku shubay hadda mashiinka qabaha maska walaaqayaa mashiinka ma isticmaalayo kana si fiican ugu qasayaa kasaasuu noqday waan soo qaadanay bahashaan ku shubayay birtii ama bahalkii aan xagga hoose ku gelinayay waxyar subagaan marinaya si aan hadhowto ugu dhegin marka waxaan gelinayaa xagga hoose waxay qaadanaysaa 15 ilaa 20 daqiiqo hadda waxaan sameynaa wixii dusha ka marin halkan waxaan ku shubtay caanaha keega lagu sameeyo wax yar waan yara diirinayaa fardiiris baan ka dhigayaa marka shukulatadaas aan rabaa inaan dusha ka mariyo insha Allah yar bulshada markii bay ugu dhalaasho waan iyo diirma ku shubay intaasaan si fiican isugu walaaqayaa shukulaatada inay dhalaasho rabaa kala socod wanaag alxamdulillah waan ku yiri saaraa leeyahay marka waatan wax yar oo subagaan ku daray ma badnaado malqacad xitaa ma
waxaan ku daray wax yar oo sonkorta budada ah maadaama shukulaatada madow ahayd aan ciyaalku nacno qadhaadhaan adu wax yar oo sonkor ku daray taasoo si fiican isugu walaaqayaa insha Allah hada keegi baa ka soo baxaya waa kan keegi quruxda badan noqday masha Allah tabarakallah xeer baan qaboojinayaa markaa ka baxda waxaan dusha ka marinayaa shukulaatada la socod wanaagsan hadda waxaan dusha kaga darayaa كوكوس أما قنبة شيدا ما شاء الله قنبة واد بفيعية marka kaasaan dusha kaga daray saasna waad ku cuni kartaa hadii kalena talaagada xeer gelinaysa ka bacdi markaad ka saarto soo ku dhagay nooca okay laakiin iminka qumbahan ku daray qumbaha shiidan oo kaas asxaabta qaaliga waxaan idin leeyahay keega waa kaas oo keega quruxda badan qumbaha yar baan ku daadinayaa hada iminka la cunayo marka talaagada la geliyo si fiican laakiin bal waan tusay hada waa goynay intaan talaagada gelin ka hor markaas sidaa iyo assalaamu calaykum